koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta rediyo kulmiye fadlan sabskrayb saar janalkan kenen haddaad wax maqlaydaan hadalkayga qaadho dalka hadimadiisiyo haw hadiidinaaye war waad waalan tahay bug iyo haw aad ku soo dhaqantoo ku soo dhimatae maxay tahay dalka hadimadiisiyo haw hadiidina heeska bacalwaan ma ahayn sidaa dalka horumarkiisiyo hawl hadiidina buu ahaa waala ku cali adiga laftaadaan fiyoobayne jenaraal haw ma soo dhowaan 93 baa dalkan laga cir war dadweyne ii dhagaysta xilli waxaynu joognaa faladegan tubaac yahay balballaar magool tahay war gabaygii cabdidhowsaas ma haynana dhegayso xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooye laga tagay xishoodkii war saas ma haynana dhegayso xilli waxaynu joognaa nin xafiday ammaanada kan xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa jidadkii la xirayo shacabkii xaniban yahay xilli waxaynu joognaa xoolaha sidoodii dadka loo xarayn karo warhaadha waxaa taqaana malaga dhegaysta xidid iyo sokeeyiyo xigta iyo qaraabooy dabkan xawligaa kacay ha u noqonin xaabee xaalka nabadda aadmiga qof kastaa xil gooniya iska saara xaggiisa waraacan u gaani musharax abwaan miya war hatilay masiin lahayn balballaarka magoola bedeli marka laankuun hadraawiya bedeli warnaani waxaan u malaynayaa inuu dhoodaan bedelay war waxaa la yidhi nacayb hebel ku seejiya jacayl hebel ku naasnuuji naxli qoon adoogoo ma jiro sama ku naaxae halkaasaan ka sii wadahayaa nuunka maasada sii wad weligaaba annagaa soo gaabinaynayna dhegayso nin jacayl abaartan ku dhacay boodi kari waaye laamiga inuu jiifsaday tani qasbaysaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badina war laamigaada allaha gubee laami waa waxiriin xaggee saaxanaysaa ma jiif baa loo diida maridaa loo diiday war jacayl waxba kama taqaanaana waxaa la yidhi soo wixii duqabeeso dabagaallo u geeya doq jacayl ma ahayn war jacayl qof baan soo marin baa wuxuu leeyahay jacayl baan soo maray ilmaha yaryarka hadda jacayl ka sheekaynay war hana xasuusinina wixii hore tegay ayay ma jacaylka gooyo ugu jabiye warniyo waxaan la yaabanahay faysal cumar xaashi maxaa kalmaan ku diray war faysal meeluu maruu waayey oo bac ka siiya inta ilaahay ku itixaamay bay jidadkii oo dhan ka xireen war bac ka siinaysa muraytar sawdiro hadda gurgiis baa bac ka sii xalay la wada dalacsiiyey laakiin waxaan la yaabanahay sababta saraakiisha hore loo dalacsiin waayey waxaana la yidhi sangabaretamay kii balaysani boodi kari waa waree waxaadna oga inaad ka hadashaane kuwii hore maxay qabteen lagu dalacsiinayaa bac kasi waad ogtihiin siday bajaaj ley uga cabaadsiiyeen waree bac kasi in la dalacsiiyo waa mudan yihiin waad ogtihiin sidii waddooyinka ay dhagaxaan u dhigeen oo carray u dhooween hal waddaa furun inaa xiraan rabaa birisilii dalacsiiye war horta nimaya war mahaysaana kuwa badan oo aan la dalacsiin baa jira laakiin ilaah adaan ku barinay aysa kuwaasi nugu dalliceen annaga war mahaysaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi joon dadka uu aniga iga laayay ayuu ku dallacay cadaaladuna maray imaan doontaa ayuu sii raaciyey marka hanjabaaddiisa waxaan u fahmay markii aan madaxweyne noqdo ayaan dekarata xilka uga qaadi doonaa war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ilowsan yahay saadiq inuu askari yahay askarina amarkii la siiyo qaato berrina hadduu madaxweyne noqdo amarkiisu yuu qaadanaya marka bilaashuu cadaalada imaanaysa u leeyahay cadaalad kastoo timaa askari amaru qaadanaya warwar mahaysina ciidanka ammaanka dhuusareeb dawladda ku wareejisay bac ka sii ma ahan waa nabadsuguddii galmudug iyo ciidankii ahlusunan isku daray war inaysan bac ka sii ahayn waxaa la ogaanayaa markay xarardheere iyo ceelbuur iyo ceeldheer bug ka siiyaan waraagal hareer iyo bargaan iyo jacar ayaad ilowday ayagana maa bug laga siiya balaayaha kugu dhacdee lamba tuulidu islaaka buri ay shabaabka dugdi alla huray fade shaakadu waxay u eg tahay ninba ceesaantii ceelkeen war gaalkacyo dhinaca Puntland ay ka maamusho shidaal ma laga helay war shidaal ku gubay in lagu shidaal diiday war gudoomiyaha dhalinyarada Jaafar miyaa laga shakiyay inuu khayra taageeri rabo war qadiija waxay tiri libax laba maaha war 2022 ayaa la kala ogaan doonaa bisadii libax war ma haysiine ganacsatada iyo shirkadihii balaaya u soo baxday daacish iyo shabaab ayaa ku tartamaya sidii u baabi'in lahaa
lahaayeen mid waliba waxay rabtaa canshuurta midaas la sii mid ka badan haddii ganacsatadu ay waayaan dawlad difaacda ma sii jiri kara ganacsiga Soomaaliya war maxay tahay shabaabka iyo daacishka ka hadlisay xamar miisi dawladdu ka talin war ganacsatadu hadday dawlad difaacda waayaan waxaan dhihi lahaa bashar ha isku dulayna beesadaad bixinaysa booshiyaa ka ku iibso war saas ma ahana waxa la yiri dar alliya si daacada dadkii dawladda u raacsan dakhligii canshuurtii dalkana maalin qura diidin deganaanna waayiya ammaan soo dulmane ma warnimiya war mahaytana garamada midoobe war bixiin asaarti war adaa dhihi jiray buush weelkan buuyi ma macawnay sawda maya saas ma aan hay darookay soo badi raba ayay waa yaabnay goorma kimistirigan barata war baana tablinshadihan ku hoobatan oo dhagan sida warka wali artay qaraaga kasmaayin ku dhii kii soo bacmalaha yeereen waan walha abaabuli jawaab shaleysna ma mayba ku fadaane maamulka dawladda ikan kismaaye ilo laha edaay dadkii falkunka dambeey tilaaba aada lacaada ena lakagaada war waxaa la yidhi jabhadaha gantaalaha qarxiya kii gunnada siiyey garaamkana ka taageeraya gumaca baaruudda iyo kii gurmanayoo lahaa gaagga balancaynsho mid bashaar ha noo soo gashada gurucya dheertiiye isku guuri labadoodu waa good iyo abees war miyaan laguu sheegin mid bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki male inay laba shaab wada shaqeeyaan war miyaan hore lagu dhiin ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya farmaajo ma xamanoosa waryaa madaxda Soomaalida laba dal leh dambi ay isku galnayaan xabsiga leeyin taxaabine war waxa la yiri saldhig iyo cisbitaal qof rab lama geeyo qof rabana laga soo bixiyo ma ahana waxa la yiri siyaasadii kuma fiicna jaab maran jacaylkuna ka sii daran warnimada ciisajiinka wuxuu yiri dawladdu waxay tiri boolaha laga sheegay Uganda ka hortagayna nimanka halkan fadhiyana laga hortagi kare sidee isku qabanaysa war ninkaas sheegaysa waxba ma kala oge meeqa qaraxoo dad ku baabacay baa dawladdu ka hortagtay war Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya war ma heshiiyeen labaduba laba been oo kala duwan ayay sheegeen ma hadda kuugu horeysa labaduba midba mar waxay sheegeen in ariga Sacuudiga la geeyay la dajiyay hadda ariga xala markabka saaray wali lama dajin ganacsatadina waxay dhaheen khilaafka labada dhinac ayaa ariga u baabacaya war maxaa loo daji waay meesha maxmaali baa laga waayay ar wax ma kala ogide xamaali ha ku dileen naga tagniyo war dawladdu waxaan dhihi lahay in siyaasadda iska dayaan ganacsatada xoolaha u fasaxaan ganacsatada waxaan oran lahaa xoolaha iska daaya siyaasadda ku falisa nimanka war ma dishid ninka war gargara waryaada dukaama ma galataan dalkana uma shaqaysaan dulmiga jooj laga taga iimaanka Allah idin gelsi